inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Rabbina xariisti jannada ka waraabiye waxa hadda ku geeriyooday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer jilaagi weynaa Soomaalida caanka ka ah jilaa Sooraan Ismaaciil Sugulle sida uu hadda noo xaqiijiyay agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Burco. ehelada marxuumka oo la xiriirnay ayaa waxay noo sheegeen in hadda ay naftu ka baxday marxuumka isla markaana loo soo qaadi doono dhanka iyo hoyga magaalada Burco ka deganaa. haddaba waxaanu idinka sheekayn doonaa taariikhdii iyo sidoo kale manfaci weynaa ee bulshada magacii manfaca weynaa ee bulshada ku dhaxlaa Sooraan Ismaaciil Sugulle oo inteena badan been iga qosliyay muddo aad u tiro badan. hadda waa uu naga hooseeyay waxaanu ka mid yahay dadka aynu ku xisi doonaa xabaalaha Rabbina xariisti jannada ka waraabiye. haddii aanu nahay dhammaan bahda ansixinta wararka isku duuban waxaanu leenahay Ilaahay naxariisti jannada ka waraabiyo. sidoo kale ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo ubadkiisii Ilaahay samiriye imaan saadiqa ka siiyo iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee tabi doonta. waxaana uu runtii noqon doonaa mid boys weyn inoo baneeyay isla markaana aynu ku xasuusan doono dhanka jalaanimada oo aanay jiri doonin cid dambe oo isaga inoo bedeli doonta. sidoo kale waxaan uga tacsiyadeynaa bahdii ay isku xirfada ahaayeen isla markaana ay wada jilaaga ahaayeen sida jawaan iyo sidoo kale asxaabtiisii kale aan iyaga la leenahay Ilaahay samiriye imaan saadiqa ka siiyo. iyadoo aynu wada ognahay in la dhimanayo dhammaanba ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan ay ku xukumayeen geerida. hase yeeshee waa la kala horeynaya maalmuhuna way si kala mugdi iyo sidoo kale farxad badan. haddaba Ilaahay naxariisti jannada ka waraabiye Sooraan hadda ayuu dhintay isla markaana waxa la aasi doonaa magaalada Burco lagu aasi doonaa maalinta bariya haddii Ilaahay ka dhigo. daawadayaal soo duceeyay idinku ugu soo duceynaya bartoosii komitiga siina shargareeyay muuqaalka oo la wadaaga dhammaan ummadda Soomaaliyeed si ay ugu duceyso. maalmihii uu caafimaadka qabay isla markaana uu inoo soo dhigi jiray riwaayadaha aadka u quruxda badan waxaynu shargareyn jirnay ka badan 100,000 oo jeer balse geeridiisa maanta waa inaynu shargareynaa oo aynu ku xusnaa si Ilaahay ugu dambi dhaafo isla markaana uu qabriga ugu waasiciyo waa inaynu ugu soo duceynaa.